Maamulka Koonfur Galbeed ayaa guul ka sheegtay dagaalkii labada maalmood qaatay oo ka dhacay magaaladaasi, kaas oo u dhexeeyay ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaad deegaanka ah kuwaas oo ka soo horjeeday maamulka Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Sida uu baahiyay telefishinka Koonfur Galbeed, dagaalka ayaa goordhow soo gabagaboobay waxaana la soo afjaray maleeshiyaadkii ka soo horjeeday ciidanka kuwaas oo ay hogaaminayeen saraakiil caan ka ah magaalada. Sidoo kale qoraal ayaa waxaa lagu sheegay in kooxda laga dhigay wax nolol lagu qabtay kuwa cararay isla markaana weli la daba joogo. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Maxamuud Ibraahim Bilaal oo la hadlay warbaahinta ayaa bogaadiyay howlgalka ciidanka wuxuuna xaqiijiyay in laga adkaaday ciidankii ka soo horjeeday ee shalay iyo maantaba ay la dagaalamayeen. Dagaalka saaka ka dhacay Baydhabo ayaa yimid kadib markii la sheegay in ciidanka Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen guriga wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya Xasan Eelay oo ay isku dheecaan yihiin maamulka. Sida aanu ogaanay, dagaalka ayaa saakay salka ku hayay muran xooggan oo ka dhashay dhul ku yaala aagga suuqa xoolaha ee magaaladaasi. Si kastaba, xiisadan ayaa ku soo aadaysa xilli la filanayo in Koonfur Galbeed ay aado doorasho maadaama uu dhammaaday muddaxileedkii Laftagareen.